فلي هذا ده كوا كقص اليوم هذا كمينيا أكثر انت مداولة هذا مش هسوق لي شيء مصاب هنا شيء إنسان سكر क्या है सपा أنا كريرة كم على أنا إنسان سكوت
baxaysa ee halkan sawirada iyo muuqaaladana iyagoo daray ah warbaahinta WhatsApp groupka team Khadar iyo ka shaqeynaya halka jooga ha tagaan qof kasta lambarkiisa ha geliyo wuxuu helayaa sawirada uu qaaday kuwa isagu qaadayna ha ku daro si ay qayb uga qaadato faafinta آدم برة دعالة وزير كاشانديكا دولة كينيا آدم برة دعالة سودو كما قبلك على مسار كمدحوينها هي مدحوينة كحجينك مسؤولين قولنا مدحينها الصومالية إن سوقاري يا برنامج كنا توصلوا إنه قبل أوميا فضلا عن دول قاعدنا عن سيسين وفرصة عن لشقين لامها أمنيكا عن تحقلين أو مقالنا وركا كوحها بروتوكولكا قولنا عن دقائق ويرين دونا شغالة إنه قبل أوميسا
mudanayaal iyo marwooyin
waayahay kooxaha brotocolka iyo media waqti ay siiyaan munaasabada ayaa goordhow inoo bilaabanaysa weli dad baa gadaal taagan waxaan codsanaynaa in kooxaha maamuuska ee kuraasi ku fadhiistaan dadkaasi siiyaan qof kastana wuxuu fadhiisanayaa meesha magaceedu ku qoran yahay qof kasta meeshii lagu xusay qof kasta maamuuskiisa oo guddidu ay sii diyaariyeen dadka haddii ay buuxsatay oo dabcan wanaaga iyo jacaylka iyo maxabada loo qabay in munaasabada laga qayb galo dad badan yimaadeenna waxaan codsanaynaa inay dadka dhex istaagin ay geesaha istaagaan ama qaybta dambe ay tagaan munaasabadu maanta keliya maaha caawana way socon doontaa iyadoo lagu qaban doono meel dad inta ka ballaaran ay isugu iman karaan dadkii halkan ay ka buuxsato maanta ka soo gaari waayey kuwa ilaa iyo haatan taagan bannaanka madaxtooyada kuwa wadooyinka ku soo jira dhammaan waxaan rajaynaynaa inay taas dambe ay si fiican uga faa'iidaystaan agalay inay kala qayb galaan beesha caalamka sidaas darteed waxaan rajaynaynaa waxaan soo dhawaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha madaxweynaha oo lagu weheliyo madaxweynaha dowladda Puntland ayaa hadda waxa uu salaamay dhammaan mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabada fadlan كان جدا يهمهم كامل الدعوة انت بس نية رفوية لا نية رفوية بسم الله الرحمن الرحيم أم فريسنا الله فريستو صفقة مدح الجلاشة ده أفريستين دقائق هلا تشوشيو برنامج كانوا بلامية برنامج كانوا بلامية دقائق هلا تشوشيو من أصحابك هلا فريستو
mahadsantihiin alla fariista بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كمان بلعبنا هنا دقائق هلا تشوشيو دقائق هلا تشوشيو دقائق هلا تشوشيو مدحوينها الدولة الفدرالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها الدولة بنتلاند مدن السيد عبد الله الدني رئيس الوزراء كحجينكا صالح مدحوينها لفت الجران دولة goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Cali Duulaawe madaxweynaha Hirshabeelle hogaamiyaha Khaatumo mudane Firdhiye madaxdii hore ee Puntland ra'iisul wasaarayaashii hore ee Puntland madaxda ka timid dawladda dariska ah ee Kenya Djibouti iyo dawlad deegaanka Soomaaliya madaxda UN-ka EU-da safiirada caalamka u fadhiya Soomaaliya madaxda kala duwan ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dadweynaha reer Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta idinku soo dhaweyno madaxtooyada dawladda Puntland oo maanta munaasabadaas lagu dabaaldegayo caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxda Puntland ee la doortay Saciid Cabdullaahi Dani munaasabadani waxay kulmisay arrin taariikhi ah oo ku cusub Soomaaliya iyo waxaan leeyahay reer Puntland oo ah in madaxweyne laba jeer la doorto waa koow waxa kale oo maanta muhiimad gaar ah noole in 8 musharax oo la tartamayay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee mar labaadka la doortay ay goobta fadhiyaan walaalaha iyo waxaan jeclahay inaad u sacabisaan waa dhalinyarada halka fadhida weeye sharaf weyn ay muujiyeen guushii lagu kala gaaray 8 January 2024 munaasabadan waxaan rajaynaynaa inay si fiican aad u dhegeysataan madax badan ayaa hadli doonta oo ugu mudan yahay madaxweynaha dawladda Puntland iyo safiirada caalamka inoo matalaya waxaan ku soo dhaweynayaa afayeenka dawladda Puntland madaxtooyada jaamacadda Barani isla markaana ah safiirka waxaan leeyahay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada dawladda Puntland dhegeysi wacan soo dhawow hadal kuma jiro waxa fadhiya halkan maanta ismadii dhaqanka ee Puntland intoodii badnayd iyo ismadii SSC labadaba iyo Soomaaliyaba iyo dawlad deegaanka Soomaaliya